ninbaa naagtiisa wuxuu naftu u keenayaa nafta maalintii dambe waxay ku dhahaysaa waryaahe anoo maalintii oo dhan soo shaqeeyey oo guri ka shaqeeyey oo ilmo ka shaqeeyey habeenkiina adiga adugu iga shaqaynayee naftiiba iga baxday ma garanaysaa marka habeen ifasax markaasuu wuxuu dhahayaa sideen kugu ogaadaa habeenkaadna rabin oo daalan tahay sidee ku ogaadaa markaasi waxay dhahaysaa habeenkaanan rabin sabaayad baan karinayaa fahmaysaa habeenkaanan rabin sabaayad baan samaynayaa marka caawa maxaa cashadu waa maxay waa sabaayad waa seexo baan ka wadaa iska seexo ma fahanti markaasuu yidhi waaye islaantuna islaan iska daalan bay ahayd oo 7 ciyaalay dhasho habeen walba sabaayad unbay karisaa habeen walba sabaayad unbay karisaa 2 week markuu ninkii sidii ku jiray unbuu wiilkiisii u weynaa unbuu soo weydiiyaa war orada u tago wuxuu yidhaa hooyadaa soo weydiiya caawa cashadu waa maxay markaa unbay ku tiraa caawa waa sabaayad markaa unbuu ku yidhaahdaa war habeen dambena soo weydii caawana waa sabaayad ninkii waa ka isla yaabayba uu dilaaci rabaaba markaasuu maalintii dambe uuba dilaaci rabaa muxuu ku dilaaca xiila mise ilmahina dee wuxuu ku dilaacayaa waxa weyn dee wixiiba waa adigu ciyaala dhalay oo naagtiisii ku tiri habeen walba sabaayad baa karinayaa habeenkaa sabaayad kariyana iskuma tegayna baa ka wadaa iska seexo maxaad ka baalkii waa dilaaci raba ninkii dilaac mahayna qarax dhisi jirkiin maalintii dambe iyaduna waxay saasaa dhehaysidiiba dhahaysaa waxay dhahaysaa dilaac mahayna qaraxba maxaa iga gala ee taagan tahay isagana waa kanu meeshan dee maalintii dambe 3 week markay ugu soo galeen unbay maalintii dambe tiri caawa cashadu waa maxay waa sabaayad unbay tiri wiilkii unbu wuxuu ku yidhi hooyadaa u tago waxaad ku tiraahdaa caawa sabaayad haddaad kariso gurigii hooyadaa baad sabaayadda geynaysaa